الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. باب بيع المصرات. قال الشافعي أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصر الإبل والغنم للبيع، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاع من تمر. baabu beyci almusaraati midii la gaaxiyey beeceediiyu u baab yahay. neef aada rabtay inaad gadid beri oo kale yaad caawa lismadii ka daynay, ama caawa iyo habeenkii ka horeeyey, ama caawa iyo laba habeenoo ka horeysa, hadba sidii aada doontid. marka xukumkeeda muxuu yahay? xadiidkeeda dhegeyso. maalig waxaa laga wariyey sheekhiisa can abi zinaad can الأعرج can abi hurayrata, waa min asaxi الأsaaniid. xadiidkana bukhaari muslima ista ka wariyaan can طariiqi malik wغayrihi. qaala laa tusaru الإbila wاlghanama, ha gaaxinina ibil geela iyo ariga lilbeyci liأjli اlbeyc ha u gaaxinina. maslaxo kale waa loo gaaxi karaa. caanaheeda maanta candhada ha noogu jiro, biri bay marti noo imaanay, martidaasaan rabnaa caanahan badan inaan u lisno, maa fi mushkila taas. laakiin gaaxin sababteeda ay tahay lilbeyci lama ogolo. faman ibtaacahaa ninkii gato mid iyada ka mid bacda daalika markii la gaaxiyey kadib, fahuwa bikhayri nadarayni, labada fiira midii u fiican uu leeyahay. bacda an yaxlibahaa, markuu lisay kadib, markuu caanihii hashii la gaaxiyey oo ka lisay, mar labaad markuu lisay caanihii shalay uu ka lisay, maanta maba dhammabo. ayib, wuxuu ogaaday marka caanaha uu ku gatay caana lasoo gaaxiyey inay ahayd, in radiyahaa amsakahaa. marka hadduu doono wuxuu ihahdaa macali sidaydaadaan ku qaatay, ninkaas khiyaanuu sameey, laakiin anaa sideeda ku qaatay. wain sakhitahaa, hadduu nacane raddahaa wasaaca min tamrin, hadduu ka xumaado ka caroodana neefkii sidaa looga gaday waa celinayaa. caanihii intaan la gedin ku jiray oo ku gaaxsanayne bedelkoodii wuxuu celinayaa hal suus oo timir ah. waa tacabudi waayo, liannahu caanaha neefka laga lisay, ariga iyo geela waa kala duwan yihiin. geela caanihiisa waa kala badan yahay, ariga waa kala badan yahay. laakiin nabiga qaطcan linisaac, ninkii neef la gaaxiyey ogaado in lasoo gaaxiyey, neefkiina waa celinaa. caanihu ka listay oo ku xasilay markuu ninkan gedin ka hor meesha ku jirayne ou listayna waa u celinaa. marka khalaas taasaa lagu xukumay. hada qowlu caamati اlfuqahaa, sidaasay qabaan. markii abu xaniifa iyo maxamed ibni xaniif iyo tilmiidkiisa maxamed ibni xasan ashaybani laga reebo, cumuuma اlfuqahaa waa qabaan. wadala caleyh dalika alxadiid. marka qaala shaafici wuxuu iri: watasriyatu an turbata in la xira waa akhlaafu naaqati, hasha naasaheeda, aw shaati. huma tutraku in laga tago min alxilaabi in la liso alyowmeyni wathalaatha, xataa yajtamica lahaa labanun, caanaha intay candhadeedu kusoo kulmaan. fayaraahu mushtariihaa, ninka gadanaa wuxuu u arkayaa kahiira inuu yahay, fayaziidu fii thamaniha lidalika. wallahi neefkan oo ujeeda candhadiisa way dilaaci rabtaa, waa neef caano badan. taas waxay keenaysaa inuu lacagti badiyo, ousan ka harin gorgoradiisa. huma idaa xalabahaa dowlisa bacda tilka alxalaba, lisidaas kadib, xalabatan aw ithnatayni, carafa ana dalika laysa bilabaniha. markuu gurigiisa geeyey habeenkii hore caano badan oo ka lisay, markii ka dambeeyey lismadii dambe itii ku xigtay waxay intuu ka lisay wax ka yara ay noqdeen. marka carafa ana dalika laysa bilabaniha, labadee caanaheeda caadada ma aha. waa linuqsaanihi kula yowmi can awalihi, maalin kastaba ou lisaba maalinkii koobaad waa ka duwan yihi caanow ka lisay.
wa haadaa guruuru lilmushtari, ninka mushtariga waa la dhakray. neef caano aan badan laheena loogaga dhigay neef caano badan inuu yahay. wاlcilmu yuxiiطu, cilmigana wuxuu og yahay ana albaana اlibili wاlganami mukhtalifu اlkahrati wاlahmaani. waxaan ognahay geela iyo ariga caanahoodu badnaan iyo yaraan waa ku kala duwan yahay, oo hadda neef ari wax laga lisay ma gaari karaan wax neef geel laga lisay. kow, waana kala caano duwan yihiinoo marna geela caanaha dadkiisa jecel yihiin oo lacag badanaa lagu gadaa, marna arigaa la jecel yahaa lacag badan lagu gadaa. fajacala الnabiyu sal اllahu alيه wasalam badalahaa hamanan waaxidan, nebigana wuxuu ka dhigay waxa la celinaya markii neefka la celiyo saacan min tamrin uu ka dhigay. wakadalika albaqarna waa lamid, macnaha waa shay tacabudi ah, looma fiirinin, lama dhihin caanihii ou ka lisay intay qiimo la eg yihiin iyo uu celinaa neefka hadduu celiyo ma dhihin. marka taas ishkaaliyad ma leh. waxaa ku leeyahay nebiga u xadidi sidaasaan qaadanay buu leeyahay. marka waa mas'alo oo fuqahadina ay yihaahdeen, nebigana calayh salaatu wasalaam ou qariro asaga ugu horeeyey, sidaasaana nebiga calayh salaatu wasalaam hadalkiisa loo qaatay. laakiin caqli haddii la yihahdo waxaa la dhihi lahay caanaha neefta oo rida laga lisay waa ka duwan yahay hasha midka laga lisay qiimahoodii, see kulligoodba saac loogu celinayaa, saas lama dhahay. wاlgariib jiddan, soomaalida gobollo qaarkeed oo uu ka mid yahay gobolkii hiiraan oo annaga aan ku soo kornay, waxaan ogahay waqtiyaasha kamida dhaqan iyo caado inay u ahayd in ninkii neef irmaan ee gadayo inuu habeenkii lismada ka daayo. wax laysla ogyahay, ninka gadanaana waa ogyahay, ninkii iska gadaana waa ogyahay. bal waxaa laga yaabaa weeshii yareyd oo neefkan duugleed afka iyadoo ka duuban yaa subxi la geyna. waxaa laleeyahay caanahan sowsan weeshan oo xalay qaday neefki way nuugay asoo naasa balaq ayaanan suuqa la geynin. marka ninkii gadanaya waaba arkaaba neefkii oo afka ka xiran, waa arkaa oo weeshiisa afka ka xiranta ama dibigiisa ama maxaan ku irahdaa nirigti. waxaa laleeyahay martaas taas kama dhigaysa waxaan inay bannaan yihiin. muslimiinta calaa bayina inuu dhaqaaqaan waayo, laakiin algishu fiiha aqal, liannahu ninka mushtariga soo og buu ku gelaya arrintaas ayada ah. waxyaalaha khaladka oo caadada laga dhigtay ka mid tahay. waxaa ka mid ah waxyaalaha oo dadka dhaqanka ay ka dhigteen, ninkii subxi markuu neef inuu gado uu doonayo ama inuu soo gato, wuxuu leeyahay ilaahu suuqa beriga haddaan taga addoon indhala ii sahal. addoon indhala macnaha mid aan aniga khiyaani karo oo neefkan lacag badan iga siiso, ama neefka haddaan gadanayo lacag yar iga siisto, waa macsi waay oo ilaahay laga barya, ilaahayna kaama ajiibayo. marka waxaa la rabaa muslimiinta inay ku dhaqmaan alwuduux wasidq, liannahu beyc kasta fain sadaqaa wabayanaa buurika lahumaa fii beycihimaa. sidaasaa la doonayaa. marka waa in laiska ilaaliyaa dhaqanka xun, dadkana lagu baraaruujiyaa. fain radiyaha almushtari, neefkii la gaaxiyey ninkii hadduu mushtariga raalli ku noqdo, waxalabahaa zamaanan, muddo badanna uu iska lislisto, huma asaaba bihaa cayban cayb ou ka arko gayra tasriyati gaaxinta aan ahayn, falahu radduhaa, neefkii inuu celiyo buu leeyahay, naaqadii ama shaatadii bilcaybi uu ku celiyo. wayaruddu saacanna waa celinayaa oo min tamrin ah, asigoo saacaasna thamana labani tasriya, gaaxintii caanaheedii lacagteeda uu yahay. walaa yaruddu labana alxaaditha, labadkii caanihii gadaal ka yimiday ma celinaayo muqaabilkiisa fii milkii ku yimiday. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان. نبgu wuxuu xukumay ujrada ninkii damaanadeeda bixinaya inuu leeyahay.
taas waa noo imaan doontaa. neef baa la soo gaaxiyaad gadatay, markaasaad ogaatay in la soo gaaxiy waad iska aqbashay. markaad aada maalmo dhan iskala joogtaa neefkii waxaa kuu caddaatay ceeb kale inuu leeyahay ood ogeyn, ninka baacina uusan kuu sheegin. marka alraddu bilbeyci waqti ma laha, waqtigii la ogaado yaa lagu celinayaa. marka waad iska celi kartaa. aada celisidee caanihii maalinkii ku gaaxsanay bedelkoodii timir hal saacaad celinay, maalmihii ka dambeeyey caanihii aada lisanaysane adaa iskale. liannahu neefkaas hadduu dhiman lahaa adow kaa dhiman lahay mushtariga ah. marka wixii aad kaga intifaacdayna adaa iskale. ana alkharaaja bidamaani addoonkii aada adeegsatay markaad gadatay kadib ceeb aad ku ogaatay, adeegsigaas waxa weeyaan wax oo muqaabilkeeda lagaa rabo male. addoonku waa iska celinaysaa. ujrada oo adiga ku adeegayne ninkii hadduu dhinta bixi lahay baa laga rabaa oo ninka mushtariga ah. taa waaba hadda baabka noogu soo xiga aan ogaan doonaa. ayb baabu lkharaaji bidamaani waraddi bilcaybi wajanaayat اlmabiici wa shiraaءi اlcabdi bishardi maalihi wagayri dalika. waxaad arkaysaa nusakda canaawiinta waa isku khilaafsan tahay, mid un baan iska qaadanaynaa. baabu lkharaaji bidamaani, ujrada waxaa lagu qaataa ninka damaanada iskale, iyo wuxuu u baab yahay iyo waraddi baabu raddi bilcaybi ee ceyb lagu celiyo, iyo wuxuu u baab yahay wa jinaayat اlmabiici wa shiraaءi اlcabdi bishardi maalihi wagayri dalika, iyo cabdigii aada laheed dhibka u geysto, iyo addoonkii markii la iibiyo maalkiisii ma la kaca mase waa ka haraya yuu la baab yahay. waxaasoo dhan waad ogaa doontaa. qaala الshaaficiyu akhbaranii man laa atahimu can ibni abi di'bin can makhlad ibni khufaaf anahu ibtaaca gulaama فاstغله ثuma أصاaba bه cayba faqadىa lahu cmر بن cabdالعaزيiز bradه وغlته فأخبر curwaة cmر عن cائشhaةa أن النبي صلى الله عليه وسلم qضىa في مثل hذا أن الخراaج بالضمان فرد cmر qضاءه وqضىa لمkhlد بن khفاaf برد الخراaج. wuxuu leeyahay shaafici wuxuu ri akhbaranii man laa atahim, niman been aan ku aqoonina ii khabray. wuxuuna igaga waramay can ibni abi di'bin uu ka wariyey can makhlad ibni khifaaf anahu ibtaaca gulaaman. waxaa la yihi sida u badan akhbaranii man laa atahimudaas wuxuu u jeedaa ibraahim ibni abi yaxya alaslami almaki. ibraahimne waa matruuk fi lxadiid, daciif jiddan weeyaan. marka qowlu shaafici akhbaranii man laa atahimu tadliis miya, nin xun inuu magaciisina dhaafo, wax tusinaya riwaayadiisa inay maqbuul tahayna uu ku wariyo. marka cibaarada shaafici waxaa waaye man laa atahimu bilkadib, yacni ibraahim ibn abi yaxya inuu daciif yahay waa ogyahay, laakiin imaamu shaafici ma u arka anahu kadaab inuu yahay. marka diidi mayso waaqiciisa inuu ibraahim marduud اlxadiid inuu yahay. bal cinda gayri shaafici bacduhum kadaba, nin waxa weeyaan baa la yihi xagga oo xifdigana ku daciif ah, xagga ictiqaadkana khalal baa ku jiro, nin raafidi wa kaana yasubu saxaaba. marka qaarkeed wuxuu dhihi jiray riwaayatuna lxadiidi khuraafa, waxaa nebiga laga warinaya asaatiiru اlawaliin waaye. marka waa hadal aada u adag yaa laga wariyay. calaa kuli xaal xadiid alkharaaj bidamaan min gayri ibraahim ibni abi yaxya waa laga wariyey, hal sanad oo saxiix a ma laha. laakiin culammadii waxay yidhaahdeen bimajmuuci turuqihi, qaacidadan waxa weeyaan xadiidka uu tusiyey waa haabit weeyaan caqlan wa sanadan. caqliga waa u imaan doonaa, laakiin bimajmuuci turuq saxaxahu gayru waaxidi min ahli اlcilm, taasaa la ictibaarinaya.
xadiidka macnihiisana waa kana ninkan Makhlad ibn Khufaaf ibtaaca ghulaaman addoonu gatay fastaghalahu waa ku shaqaystay ثuma asaaba bihi cayban ceeb buu ka helay oo ka asiibay addoonkaad shalay gadatay 10 maalmood buu kuu shaqeeyey 100 dirham uu kuu keenay kadib aad ceeb uu leeyahaad ogaatay faqadaa lahu Cumar bn Cabdilcaziiz oo alkhaliifatu raashid Cumar bn Cabdilcaziiz ibni Marwan ibn alxakam weeyaan biraddihi wa gallatihi maadaama khaliifo uu yahay nin oo caalimna uu ahay Cumar bn Cabdilcaziiz yaa wuxuu amray addoonkiina inuu la celiyo 10kii maalmood wuxuu shaqeyna lala celiyo oo ninkii sayidka la yidhaha addoonkaadi ceebaa laga arkay qabso wuxuu shaqeeyana qaado in la yidhaahdo saasuu xukumay markaasaa fa akhbara Curwat bnu Zubayr yaa Cumar bn Cabdilcaziiz wuxuu uga waramay can caaishata ana الnabiy sala اllahu alayh wasalama qadaa fii midli hada wuxuu xukumay ana alkharaaja bidamaan ujrada addoonkaas waxaa iska leh haddii addoonkaas ou dhiman lahaa ninkou ka dhiman lahaayo damaanadiisa iska leh iyo ujradiisa iska leh marka waxaa waye macnihi waxay ka dhigan tahay addoonkii ceebta laga helay ninkii mushtarig ahi waa iska celi karaa baayica lagu celinaa lacagtou shaqeeyey ayaamankaa ninka mushtarka ou hayne ninkii mushtarigaa iska leh lianna alkharaaja bidamaani haddii addoonkan 10kan maalmood ay wax ku dhici lahaayeen u dhiman lahay mushtarigow ka dhiman lahay baacica kama dhiman lahayn marka ujradana ninkii damaankiisa iska lah yaa iskale taasaa lagala jeedaa ulajeedada intaa weeyaan saas markay dhacday faradda Cumaru qadaa'ahu Cumar qadihiisa waa celiyey qadaa'ahu wa qadaa limakhlad ibni Khufaaf biraddi اlkharaaj addoonkii fadwadaydaani waan buri buuri addoonkiina celi lacagtii addoonkaadina waa lagugu soo celiyey lacagtii lagula siina iska soo celi baa la yihi liannahu Cumar bn Cabdilcaziiz wuxuu yihi aniga waaxid min ummati Muxamed baan ahay nebiga wuxuu xukumay cagsigeeda ma ii banaana inaan xukumo marka saasaa laga rabaa nin kastoo muslim ah haddii aad wax sheegtid waxaad sheegtay aaya qur'aaniya ama xadiid nabawi ou khilaafo warkaada inaad ka noqotid w hada mima yuqawi اlxadiid liannahu qadiya camaliya hadday dhacday waxay tusinaysaa inuu xadiidka uu sababtiisa ay sax tahay ayb hada madhab الshaafici haddii shay maciib ou noqdo ayaana lagu shaqaysto ama laga faa'iideysto faa'iidada mushtarkaa iskale neefkii wixii ceebta laga helayna ninkiisiya iskale lacagtina waa laga soo celinaa mutlaqan saasuu qabaa sheykhiisa maalig wuxuu qabaa wuxuu shaqeeyey haddii uu yahay waxa ceebta laga helay haddii uu yahay wax asiga jinsigiisa ah mathalan addoon baad gabar addoon ah baad iibsatay iyadoo uur leh marka waa kuu dhashay ayada iyo waladkeeda addoonay ku yihiin labadoodiba haddii ceeb laga hela gabadhii ayadana waa la celinaa buu leeyahay waladkaana waa la celinayaa baayica iskale liannahu min jinsi mabiic laakiin haddii uu lacag shaqeeyey ay tahay lacagta iyo cabdiga labay kale yihiin lacagta waa laga reebana asigana waa la celina maalig saasuu qabaa abu xaniifa wuxuu qabaa arshiga yacni naqsiga ku dhacay bedelkiisa unbaa adiga yaa loo celinayaa ninka mushtarka ah addoonkii ceeb haddii laga arko lama celi karee waxaa laleeyahay addoonkanoo ceebta qaba meeqou joogaa 80 asoon qabin meeqou joogaa 100 ku siiye marka 20 ii soo celi baad leedahay qaala shaaficiyu fabihada naahudu uri xadiidkan wuxuu tusiyey aan qaadanaynaa oo aan ku camalfalaynaa
فما حدث في ملك المشتري من غلة ونتاج ماشية وولد أمة فكله في معنى الغلة بور غلada waxaa weyaan ka faa'iideysi marka wixii yimaado oo ku dhasho fii milki lmushtari oo min galatin ujra ah iyo wa nataaji maashiyatin maashi wixii ka dhashay ah iyo wa waladi amatin adoon waladkeeda ah fakulu fii macna algala sidii adoonkii markii la celiyey lacagtuu shaqay looga reebtay yaa maashiyada waxay dhasho iyo qofkii adoontahay waxay dhashana waa laga reebana iyadoo keligeedna waa loo celinaa saasuu qaba laa yarudu minhu shay-an ninkii mushtariga ahay wax kale ou celinaya ma jirto wayarudu aladii btaacahu waxdahu midka u gatay keli ah adoonkii keligiis you celinaa wuxuu shaqayna waa ka reebana in lam yakun naaqisan camaa akhadahu bihi haddii uu naqsi ku imaanin adoonkii markuu qaadanayo wax ka hooseeyo adoonaad qaadatay asoofiyow marka agtaadii baa gacantii ay uga go'day marka naaqis lagaama yeelayo wixii aada gadatay oo kaamil inaad celisid waxay shaqeeyeenna aad kala hartid aa lagu ogolyahay wain kaanat amatan hayiban fawai'ahaa falwau aqalu min alkhidmati ninkii mushtariga ahay adoonow gatay oo garoob ah macnaha bikaaro jabsan fawai'ahaa marka waa jimaacay markaa wadcigaas waxba kama dhibaayo haddii ceeb laga helo ninkii baayicii horaa loo celinaa wadcigiina ninkaa mushtariga wax looma haysto liannahu maxaa yeelay falwau aqalu min alkhidmati wadcigii wuxuu kasii hooseeya hadiiba la yiri wuxuu shaqo qabtay ou lacag ku shaqeey lacagtii waa lagala harayaa wadcigina lacagtii lala harayo uu lamid yahay oo mushtariga loo raacan maayo macnaheedi yaruduhaa walaa mahra lilbaa'ic cala lmushtari saasaa lagala jeedaa ayb markaa wuxuu uri wain kaanat bikran faftadahaa lam yakun lahu an yarudahaa naaqisatan kamaa lam yakun calayhi an yaqbalahaa naaqisatan wayarjicu bimaa bayna qiimatiha maciibatan wa saxiixatan min athamani wain kaanat hadday tahay adoonta la iibsaday bikran faftadahaa hadduu bikaaro jibiyo ninkii mushtariga ahay adoon oo bikaaro ahaad gadatay ninkan maadaama milku lyamiin faman ibtaga waxaa weyaan ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum marka ayadiibuu markaa waxaa weeyaan uu bikaaro jibiyey kadib bou ceeb ka helay lam yakun lahu lilmushtari malaha an yarudahaa naaqisatan dhihi maayo ceebaan ka helay qaado marka waxay noqonaysaa sidii maalinka u gadanay si ka duwan oo naaqis inuu celiyo liannahu gabadhan ceebtii horena way leedahay ceeb labaad oo adigu ku samayso oo bikaara jibintii ene oo aday dheeraad kuu tahay kamaa lam yakun calayhi asna waajibku ma aha mushtarigii an yaqbalaha naaqisatan la dhihi maayo maadaama aada bikaara jibisay ceebtii horo wax kasoo qaad ma lehe sideeda naaqiska ku qaadana la dhihi maayo marka maxaa xal eh waa kana wayarjicu wuxuu ula laabtaa oo baayici ou ka dalbanaya wayarjicu lmushtari cala albaayici bimaa bayna qiimatihaa maciibatan ayadoo ceebaysan qiimaha ay joogto iyo wa saxiixatan min athamani marka waxaa weeyaa mushtariga horta ma soo celi kara amadi waxaan loo soo celi karin ceeb kalead adiga u samaysa horta hayso kow ninkii baayic ahayna waxaa laleeyahay ceeb oo ayna gabadhan laheedood sheeganaa jirtee waa lagaa rabaa lacagteedii marka waxaa laleeyahay adoontan intaanan ninkan laga gedin ayadoo ceebtan lagu ogaaday meeqay joogtaa 80 ayadoon ceebtan qabini meeqay joogtaa boqolaa ninkan mushtariga ku gatay 20ka u dhaxaysaa loo soo celinaa ninkii mushtariga ahayna gabadhii sidaasuna ku qaadanaya taasaa loo jeedaa
ayib markaasuu uri walow ishtaraahaa jacdatan fawajadahaa sabtatan falahu raddu walow ishtaraahaa adoontii hadduu gato jacdatan ayadoo timanjariir leh fawajadahaa sabtatan buu helay madaxa markuu maalinkuu gadanaya madaxeeda waa adkaay waxbaa inta lasoo marmariyaa magaceeda waxaa laga dhigay mid adag fawajadahaa sabtatan markii madaxii loo dhaqayna waxaaba la arkay timo jilcan inay leedahay falahu falilmushtari alraddu cala albaayic inuu yidhaahdo gabar madax adagaan kaa gatay tinteeda adagsan yahay waxay noqotay mid dinteeda ay tahay ay jilacsan tahay marka ceebay noqotay iga celi maa hiya alfaa'ida midda waxaa lagu leeyahay addoomanka waxaa loo gataa gabadha ah adeeg qofkana markuu xoog leeyahay adeegiisa naafic waay tinteeda ay adag tahay waxay ka dhigan tahay amatun qawiya inay tahay markii tintii ay caddaatay inay jilicsan tahay yudanu annahaa daciifa marka wixii aada iiga dhigtay gabar daciifad aada ii moodsiisay mid qawi inay tahay hada qowl ljumhuur waay abuu xaniifa wuxuu leeyahay ashacr laa yatacalaqu bihi manfaca tinta ha adkaato iyo ha jilacsanaato wax macno weyn keeni mayso macnaha waxay u daliil tahay waxaa loo gaday khidmo laakiin istimtaac haddii loo gadan lahay midda timaha jilacsanna hiya anfacu fi listimtaac min saaxibati اljacda ayb calaa kuli xaal madhab اljumhuur waxaa weeyaan ceeb baa lagu tirinaya walow kaana baacahaa aw bacdahaa ثuma calima biاlbeyci lam yakun lahu an yarjica calى اlbaa'ic bishayi walaa min qiimati اlcaybi wainamaa lahu qiimaة اlcaybi idaa faatat bimowti aw cidqi aw xadaثi laa yarda اlbaa'icu an yuraddu bihi ilayhi walow kaana baacahaa addoontii oo looga dhigay inay madaxeeda adag yahay ou gatay intuusan ogaanin madaceeda xaqiiqaha yuu sii iibiyey aw bacdaha ثuma calima bilcaybi gabadhii lagu hoosgeliyey adigana waa sii gaday ninkii kaa gatay agtiisaad ku ogaatay in ninkii horo siduu kaaga gaday inaysan ahayn lam yakun lahu malaha an yarjica calى اlbaa'ici bishay ninkaa mushtariga koobaad baayicii hore ula laabo kari maayo liannahu shaygii ceeboobay waadba sii gadayba lacagtaadii oo dhammaystirana ninkan dambaad ka heshay marka wax sabab ood ninkii kale u raadsataanba jirinba mana celi karo walaa min qiimati alcaybba wax kuma laha liannu bedelkiisaad heshay ayib laakiin haddii ninkii hadduu sii gado mushtarigan hadduu sii gado oo ninkii saddexaad oo laga gada ceebtii ou ogaado oo mushtarigii hore ku soo celiyo kii lagu soo celina baayici waa ku soo celi karaa laakiin masaladan waxay u taallaa haddii aan lagugu soo celinin wa inamaa lahu lilmushtari wuxuu leeyahay qiimat اlcaybi idaa faatat hadday tagto cayntii mabiicada ahayd bimowtin aw cidqin aw xadaثin shay baad gadatay inuu ceebtaas lahaynaad ku gadatay markaa kadib uu dhintay ceebtii waa la ogaaday marka ceebtaas neefkii ceebtii lagu celi lahay ma celin kartidoo waaba dhintayba marka maxaad qaadanaysaa badel alceyb yaad qaadanaysaa maxaan ku iraahdaa carshiga ama qiimihii baad qaadanaysaa addoonkaad igu dhagartood 100 iga siisay ceebow lahaa haddii asoo ceebaysan la qiimay lahayn 80-20 isoo celi baad leedahay aw cidqin addoon baad gadatay ood ceeb ku ogeen markaad xoraysa kadib aad ceeb ku ogaatay lacagtii qiimihii lanno addoonkii lama celi karo waa xoroobay marka ceebtii qiimaheedaad qaadanaysaa aw xadaثin laa yarda albaa'icu an yuradda bihi ilayhi ama ninkan mushtariga ahaa wuxuu ku sameeyey shaygii ou gatay buu ceeb asiga ku sameeyey waxaa ka mid addoontii libikaare jibi
bikaari jibinta mushtarka uu bikaari jibi waxay u diideysaa inuu baa'ica ku celi wuxuu leey maya gabar bikraan kaa gaday waxaad ka dhigtay thayibkaa qaada maayo qiimihii baad ka qaadanaysaa marka ayib markaasuu uri fain xadatha cindahu caybun kaana lahu qiimaة الcayb الأwli إlا an yarda الbaayicu an yaqbalaha naaqisatan fayakunu dalika lahu إlا an yashaaءa الmushtari xabsaha walaa yarjica bشhayءi fain xadatha hadduu kusoo diriyo cindahu cinda اlmushtari fi lmabiici caybunaa kusoo dirisay shayaad gadatay inuu ceebka saliim yaad u malaynaysa markaad qaadatay kadibaa ceeb kaloo adiga agtaada ayuu haddana yeeshtay kaana lahu lilmushtari wuxuu leeyahay qiimaة اlcayb اlأwali ceebta agtaada ku timid ma lihid inaad qiimo ku raadsatid laakiin markaad gadanaysa ceebta u lahay baad leedahay baayici io celi lacagtii ku qaabilsaneed ilaa an yarda albaayicu baayica inuu raalli ku noqdo an yaqbalaha naaqisatan fayakuunu dalika lahu baayica wuxuu yihi shaygan oo aada sheegays inaan soo ceeban kaa gaday io soo celi markaasuu uri ceeb kale you leeyahay oo agtayda kula timid ha ahaata laba ceebba halaada igu soo celi lacagtaadana qaalo hadduu yihahdo waa leeyahay baayica ko ilaa an yashaaءa almushtari xabsahaa walaa yashtari walaa yarjicu bishayin ninkii mushtarigaa yihi intaan kuu celi lahaa oo aada labadii ceebka tanaasuli lahayd anaa labadii ku qaatay ma rabo inaan iska celiya ma rabo buu yihi labadoodi taadina waa ku cafiyey tanna anaa ku qaadanaya hadduu yidhaahdo waa laga aqbalayaa liannahu xaqiisi wa ziyaada buu ogolaaday wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed waaalihi wa saxbihi ajmaciin.